أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك الحميد المجيد. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkaan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda ku xiran barnaamijyadayda waa anigoo MMS ah. waxaan idin leeyahay soo dhawaada, waa salaamantihiin, waa idin salaamayaa, waa idin jeclahay meel kastoo adduunka dacaladiisa uga nooshihiinna. waxaan idin sheegaynaa annagu haddaan dumar lahay waxaan raadinay isbeddel baan raadinaynaa. maxaan bedelaynaa? waxaan bedelaynaa edab darrada, waxaan bedelaynaa ragga awoodda nagu haysta, waxaan bedelaynaa qaladaadka, waxaan ku tusaynaa inaan jir leenahay, inaan damqanno qandhuufo iga daa qandhuufada, wax kastaan sheegi karnaa. waxaan hagaagsanayaa maanta timahaygaan hagaagsanayaa. waagi hore luuqaan la geli jirnay, hadda xaggee la soo fariisanaynaa? aan la soo fariisanaynaa publigaan la soo fariisanaynaa. why? cause nobody baanaan ka baqaynin. sow nimanka dadka laynaya oo dadka dilaya oo wax qarxinaya, ma kuwaasaan ilaahan idinka dhaarshay? ma kuwaasaa weji ka sugaysaan? dadkan dadka qarxinaya oo wax gubaya ilaahan idinka dhaarshay, ma kuwaasaa weji ka raadinayseen? kuwaas miyaad weji ka raadinayseen? weji no yaa ka raadisina adaa cirka roobkooga. dalkii aaw, dumarkii aaw, ma noolin. waxaan idin sheegayaa meeshaan gabdhow naftiina ka shaqeeya, naftiina jeclaada. annagu haddaan reer dumar laanahay waa tashanay, dhaqaalo waa u tashanay, kala dambayn waa u tashanay, inaan isku duubnaana waa u tashanay, sanduuqyo dhaqaale inaan samaysano waa u tashanay. waxaan rabaa inaan idiin sheego, anigu adduunka intaan saarnahan ammaan u baahnaha. maalinta aan dhinto ammaan kaama raba. anigu runtaan kuu sheegaya, anigu maalinta aan dhinto kaama rabo ammaan. maalinta aan dhinto ammaan kaama rabo. inta aan noolahay baan kaa rabaa inaad ii ammaantid. waxaan ku khaldanahay iyo waxaan ku saxsanahay inaad ii sheegtid. waxaan ku khaldanahay ma ahan inaad igu tiraahdid abtigaa maxaa u tiri waa i kubsaday. kaas waa runtay, sidee khalad wuu geli karaa, malaa'ig maaha. abtigay qalad waa geli karaa. nin dhalinyaraa buu ahaa, victim buu ahaa. inuu victim ahaa baa laga yaabaa. marka koos guriga uu joogay hooyadiis ma joogin, ayayday buu la joogay, hooyadiisna ma ahayn. inuu wax tirsanayay no waa in la raadiyaa. marka waxaa rabtaan qalad inaad qalad ku saxdaan, inaad qarisaan wax walba, inaad qarisaan. aniga haddaa ay leedihiin wax qarin maayo, laakiin sidee wax loo fikis gareeyaa waa ogolaha. sidee wax loo fikis gareeyaa, sidee wax loo qabtaa, sidee wax u bedelnaa, taas waa iigu imaanaysaan. laakiin iigu imaan maysaan wax qarin mayno. laakiin waan raadin karnaa qaladaadku wuxuu ku dhacay. wiil yar oo dhalinyaro ah oo gabar yaroo saqiira kufsaday, something wrong. asba oday weyn ma ahayn, wiil yaroo dhalinyaro ah buu ahaa markuu abtigay aniga la kufsaday. waxaa rabtaa inaa maan power aan ugu maamushaan. hadda wiilasha yararka ahoo caasho kufsaday, ayaga waxaa aniga igala daran, ama nadmo kufsaday ama faadmo kufsaday, yaa iiga xanuun badan. wiil yaroo qooqan gabar waa iska dhabaaya, iska fuulaya, laakiin yaa iiga dhib badan. waxaa iiga dhib badan dadka cadaaladda inta u fadhiya maxkamadaha, dadka inta cadaaladda maxkamadaha u fadhiya aan cadaaladda qaadaynin, kuwaasaa ka xanuun badan. laakiin wiilashaan yararkaayo qooqay, horta wiil yaroo wax fuulaya haddaa aragtaan asagaa la soo fuulo.
gabdhaha yaryarka wax badan aan ognahaa jira laakiin hadda sheegi maayo maalintaan America ii soo baxdo oo America gadaal aan ka maro laa bilaahi tallahi alaar information baan hayaa oo aad leed u qabtaa inaan wax sheegay wallahi ana 10% sheegin wax badan baan ogahay waxa anigu qasay iyo wax la iga qasayba waxaana victim dadka ku sameeya ama wax sii wada ama ciil u qabtaa waxa weeyaan qof la duumay ninkan wajiga duubta hadda u jeedaan oo Soomaaliya jooga wallahi waxaan ogahay oo dhan haddaan sheego waxa laga yaabaa inay hub ka dhigaan you know what because waa victim ciil bay qabaan aggressive bay ku jiraan way ciishaysan yihiin maxay ka ciishaysan yihiin marka soo adduun weynuhu hadduu ina ogaan lahaa Soomaali waxaynu nahay haddii adduunku ina ogaan lahaa waa la raadin lahaa kii burcad badeed noqday kan wax qasaaya kan wax qarxinaaya kan dalka gubaaya kan dalka gadanaya kan beerta kan badda iibsanaya kulligood Soomaalidu waa wada victim laakiin victimnimadii bay qarabaa inay qariyaan hala idinka wada qaldan kulligeed oo wada ogtihiin qofka marka qalad laga galo buu qaladkii qalad ku saxaa anigu war badan aan ogahay waxaan sheegaa mataqaanaa America markaan gadaal ka maro waa Soomaali maryoolay soo gaari karin wallaahi wax badan aan ogahay sheegaa markaasaan guryaheena ay ka shidan tahay hanna hadal maaha hembererese arag maaha hanna hadal maaha hembererese arag maaha bum hadana bum bemba barateen bala la idinka rifaayay ya imisaan joogna oo jinni xariga ugu jiray ee barcaawa aan jimicsado so ayuu sheegaya no ben no qaris no amus no xishood no aku sheegaya runta laa bilaahi tallah runtaan ku sheegaya timahaas xataa hagaagsanaayo awood aan banaanka oo la soo fariisana ma aan lahayn jirin baqdiniga dheh yaad ka baqaysaa nin wuxuu kugu sameeyay wuu kubsada wuu idilay macallin buu ii yahay waa idulmaa macallimiinta dugsiyada noo dhigta oo aggressive ah waa aqaana anigu ilmaha dugsiyada macallimiinta u dhigta qaarkood waa wada aggressive why because waxay ku yihiin waxa waaye wax kala maahan waa wada victim wiil yar oo victim ah hooyo lahayn oo hadduu rabo aabba lahaayo hadduu rabo adeerkii soo kubsaday oo baa ilma dugsi loo dhiibaya so maxaa imaanaya marka muxuu samaynayaa ciil buu qabaa carruurtii buu laynayaa daf habartiina ilmaha dhashayna ayana waa victim maxay leedahay macallinka yaan la taaban ar macallinka yaan la fiirin my hair is beautiful right marka waxa weeye ha igu mashquulinina idab darada iyo beentana iska daayay fanaaniinta Soomaaliyeed waa victim rag iyo dumarba gabdhaha Soomaaliyeed waa victim wiilasha Soomaaliyeed waa victim qof walbana inta la soo dulmay wax kala sii dulmaaya kuwa nacaayaya waa victim kulli xiradeeda halaqada badan am I cute am I beautiful you see waa ugu talagal inaan saas dhaho waa design marka waxaan idin sheegayaa meeshaan Soomaaliyay kulligan waa inaga wada shidan tahay wixii la qarinayo waa dhamaatay sanadkii qarisku waa dhamaaday sanadkii qarxisyada socdee yaan la isku mashquulin aan isdaaweynaa ma isdaaweynaa runta idin sheegaya wax dambe oo la qarinayo ma jire qof kasta oo daawo u baahano call MMS waxaan idin sheegaya isi timahaygaan xirtay timihii mareexaan baa la dhahaa midda kale dadka mareexaan markaan wax ka sheegay cayrsanayo hadda facebookadeeda inay jabsadaan oo xiraan oo isku dayaayo horta mareexaan maxaa kaa galay mareexaan oday buu ahaa waa horu dhinto anigaaba u shaqaynayo ajar siinayo kow laakiin maxaa iga rabtaa mareexaan baa iga xigtaa mareexaan oday buu ahaa daarood oday buu ahaa hawiye oday buu ahaa magacyadiina xataa magacyada kama taqaanaa maxaa idinka qaldan aniga maamuliyun baa la yidhaha soo ma maxaa ciyaalkayga maamuliyun ka galay marka kadare soo maaha hooyaday suuban baa la dhahaa qof baa inta soo fariisto hooyadaa waxaa ku samee war hooyaday shaqay u baahan tahay u shaqeeya mareexaan anaa u shaqeeya maxay iga rabtaa idinku iyo cayrsanayseen balaa idin guratay mareexaan baa tala u haysaan iyo baalkii ta kale mareexaan idinkaa lay dhahaa nin dhintay baa mareexaan la oran jiray
maxaa u oydaan marka mareexaan wax laga sheego, marka hawiye wax laga sheego, marka majarteen wax laga sheego, marka bicidiyahan wax laga sheego, marka wacays wax laga sheego, marka madhibaan wax laga sheego. madaa madhibaan lagu dhahaa magacaa. What's your name? Your name is madhibaan? No, khalad baa wada fahansantihiin. qof dhintay baa magaciisa nagu haysataa, magacaaga ma haysano. mareexaan oday waa hore xataa inuu wax soo dulmay aan laga warqabinin, hawiye in wax soo dulmay lagama warqabo, daarood in wax soo dulmay lagama warqabo. maxaa ka ogtiin marka idinka u wada dagaalamayeen dhintay waa hore? maxaa ku dagaalamaysin? maxaa idinka galay? your name is your name, you know. awaadeen maxay ogaadeen kaa galay? oday buu ahaay. dhulbahante maxaa kaa galay? oday buu ahaay. nin walba qabiil baa barateen, maba taqaanaan. maxaa ugu hilinaysaan oday waa hore dhintay inuu ayaydaa dili jiray xataa aadan ka warqabin? alla maxaa idin garantihiin? amay kiyid maalinba timaha dhinac baa usoo hagaagsanaya. marka waxaa weeye waxbaa laydinku shubo, wixii laydinku shubaa idinka shubaayo. si aad baraa dhihi jiray waxbaa laydinku shubay oo laydinku shubay anaa idinka shubaayo. so wixii laydinku shubay oo beenta ahaa oo qabiil ahaa oo balaayo ahaa baa idinka shubaaya. ko waxaa idiin sheegayaa marka waxbaa laydinku shubay oo laydinku shubay. maxaa qabiil kaa galay? aday kaa shidantay. amay kiyid marka alla adduunyo soomaali baa hadda wallaahi bilaahi tallaahi qabriyada inaa aniga hadhow markaan dhinto idinkama baahni ammaan. ha i ammaaninina. aniga hadhow haddaan dhinto ammaan idinkama baahni. ammaan haddeeraan u baahnaha, ay haddeeraan u baahnaha, wax kasta haddeeraan u baahnahay. markaan dhinto don't talk to me. kulligiin oo dhanna waxay idinku caqli badan deeqa afro. thank you deeqa afro ila saada. deeqa afro baa idinku runta badan because ayadoo adduunka saaran bayba dardaaranta. maxay sheegata? inaysan qabriga jeclayn. ha igu ridin inay ku tiri qabriga qiyaamihiin dhacay. ko why? so dadka waxaa rabtaan qofku markuu nool yahay baabad afka ka xidhaysaan. ayadu markay had dhimato choice ma lahan, laakiin ayada nool bay kuu sheegto. marka laa taxabxabaal deeqa afro, laa taxabxabaal deeqa afro lama xabaali karo. waxay ku tiri ciidda waa nimca ha igu xabaalin. waxay ku tiri naagahan soo yaacayo faraha badan iyo idhaqin. waxay kugu tiri marada surkayaan la iiga xirin. waxay kugu tiri nimankan badeelada wata horta intee kasoo gurtaan badeelada ha igu taabanina. waxay kugu tiri geed korkiisa saar. waxay kugu tiri catarka udgoonka badan oo bahalkiya dangerouska ha igu shubinina bay ku tiri. waxay rabtaa in lagu shubo, waxay rabtaa dream angel in lagu shubo oo udgoon marka la dhaho bay rabtaa. marka qofku intuu nool yahay buu hadli karaa. iyadoo nool bay runta idiin sheegtay. waan salaamaya, waa idin jeclahay, waan ku agri gareeyay deeqa afro meeshay rabto in la geeyo markay dhimato. cimri dheer allaha ku siiyo. ilana soo xiriir. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.